warwaad ka shaqaynayso shaqo maaha bomba tahayo midgaana waadna ceebaysay ayaa waalidka asaga dhahay iyo xaaskiisaba ku dhaheen walaalaha sharafta ummadda Soomaaliyeed dhowr jeer waa iga aragteen anoo soo duubay dhahaya ummadan waa in la shaqo geliyo ummadan isku dul nool waa in laga bax wiilkan Soomaali waa daawateen u malayna oo Yurubta ka tagay oo dhowr sano joogay oo arkay meeshan inay waxba oolin ka bacdina martaasi jigjiga aaday meel doobiya furtay dharka lagu feereeyo oo dharka lagu baaso furtay meesha oo kala kacday alxamdulillah Yurub iyo balaayada waa ka raysay ninka asaga ahaa in adeeryaalow maxaa qabsaday waxa qabsaday yaani dadka asaga dhalaba ku soo joostay annagoo reer suldaan ah annagoo reer madax ah annagoo ma taqaanaa yaani wiilgaana boqorinahan oo waxaan ka shaqeynin yaadna ceebaysaa lagu yiri yaadna ceebaysaa waxaad yeelaysaa shaqada naga jooji xaaskiisa waxay ku dhahday ma taqaanaa waxay ku dhahday biilkan ka biil oo yiri meeshan wax kasta iga soo baxa alxamdulillah qaraabada ka xiriiriya waa shaqo wanaagsan gacantaada waxa waaye maxay aliyadul ulya khayrun min aliyadi sufla oo nabi sallallahu alayhi wasallam gacanta sareysa waxay ka khayr badan mid hooseysa waa ku shaqeeya biilan ka soo saara biilka doobi dhar la feereen iga soo saar lahayd waxa ay dhaanto yiri waxay dhahday anoo gaajo dhinto waa arkaysan sama walaalba qaladka ayaa iskale qaladkan waa iskale ko horta odayaasheen hore ayaa iskale hoo dadka ma taqaanaa yaani kabaha noo talo biraha noo tumo injineeraha ay soo yeesi jireen markaan heer waxay noqday marka waxa u dhaantay inay tugsadaan marka tii iid ahayd yaa annagana wili ku soconnaa ninka injineerka ayaan caynayna markaan walaalaha sharafta leh qaladkaas horta kow dadkeena hore ay ka dhaceen waa inaan ka gudubno waxaa hadda qalad iskale dadkan qurbaha jooga qaladka labaad dadkan qurbaha jooga jira waxaa waaye dhalinyaro shaqaysan karto oo feero weyn yaad biilaysaa oo lacag u diraysaa qofkaas asaga haddii la biilo $500 qofkii loo diro Afrika uma baahna shaqooyinaa tuban Afrika yani ninkan hadda sharafta loo gacantiisa ku shaqaysan oo doobi ka shaqaynay furan karaan kabacasay geli karaan beerahay fali karaan shaqooyin badan ay qaban karaan laakiin ma rabaan sababtoo adaan 200 300 diray waa faantay Soomaa ina adeeryaalow arintaanan ka baxno war hooyada ay abaha waa waajib arur agooma oo kala biil qof ma taqaana uriyaan oo kala wixii siinaysa si war ina adeeryaalow qofkan feeraha weyn oo walaalka oo 7 carruur hayso biilaysa biilka ka jar oo abtiga biilka ka jar oo adeerka biilka ka jar oo walaasha oo masaakiin qaba leeda biil u diraysa ka jar laakiin wixii ilaahay ku amri raac qaraaba xariinay ku leeyahay waa faantay Soomaa markay ku soo wacaan markay dhib qabaan markay kaalmo u baahan kaalmadaas ilaahay ku weydiinaya waa faantay Soomaa laakiin heerkaas markaan biilkana diraysa waxay dadka ay noqdeen in ninka Yurubta ka tagay oo Yurubta ogteen kulliga waxaan ka shaqeynaa ma taqaanaa shaqada liidato sida clinic oo kale oo ma taqaanaa yaani dhulka la dhaqay oo kale chickenka ma taqaanaa digaagan rifnaa shaqooyinka oo liita English mankii America ka shaqeey shaqada ma liidato laakiin annaga waa aragno waa faantay Soomaa markaan aniga waxaan ku leeyahay walaalkay walaashay lacagtaana diraysa ummadii saasay ka dhigtay bal ka waran ninkii soo xirfad soo bartay oo Yurubta ka tagay oo shaqada galay yaa maanta ma taqaanaa la yasa oo leeyahay biilkaada ka marab qaladkaas kulli ani adiga iskale aan joojin arintaas ayda marka fadla walaalaha sharafta leh fiidiyowgan u sii gudbi inta Soomaali aad taqaanid adiga u sii gudbi qofka waa inuu gacantiisa ku shaqaysto gacantaada lagu eelbaxaa marka insha Allah taala taas inta marka lagu gudo arkaysaan meeshan maanta waxaan joogaa Pagan waa meeshii lagu liibaani way hadaartii dhikar iyo sokor inay ma taqaanaa ka yaraadaan ama sokorta ka baxdo sideed oo kale ama hadii kale kaliyaha ay xoog kor ugu soo kacaan sideed oo kale ina adeero paagyaasha tag ka kac meesha fadhiga ka kac lugee waa faanti soo biyo badan cab cusbo iyo saliid iyo sokor iyo baasta iyo cusbo iyo shaah iyo qaxwo iyo waxba ku matala barta iska dhig untooyin fara badan oo la cuni karaa jir waa faanti soo odigi leeyahay jirka waad arkaysaan oo 5 sano in barkiliyayda in yaray shaqaynaa wiliina waa ay socdaan alxamdulillah ducadiina faraha badan iyo dadaalka waa uma taqaana ayaan ku helay waa faanti Soomaa 5 sano ka hor dhakhtarku wuxuu yiri yani inay istaagaan marro waxay shaqaynayaan 21% kaliya in adeeryaalow GFR ku idin shaqadaan ka hor wayaala lagu cabiro waaye kaliyaha oo dhakhtarku yiri 20 ay shaqaynayaan 100% laga rabay
يعني مرة مركان تجي دكتور قوير أم سبرايز كليات ولينا شقيني أنا أم سبرايز فبعدين سوما مركا إن عذيره وفني ككع متقن عفمات كذا كفكر عفمات كذا كفكر هاون كفكرنا أيوتي قريها النسائية أو متقن واحد قيب قبيعة إيجابية هرجيسي جيجي جبوت القرية واحد كبح نفط هذا وتلي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.